iminkana Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad loogu dabaaldegayay sanad guuradii 74 ee ka soo wareegatay booliska Soomaaliyeed iyadoona guud ahaan qaar kamid ah gobolada dalka looga dabaaldegay aasaaska booliska Soomaaliyeed balse aan ku horeeyo Nimca Maxamed Bashiir oo warkaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. sagaal boqol 43 ayaa la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliya oo ah hormuudka ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. munaasabad ballaaran oo loogu dabaaldegayay sanad guuradii 47aad ee booliska Soomaaliya oo lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee General Kaahiye waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka, wasiirka amniga gudaha, gudoomiyaha gobolka Banaadir, saraakiisha laamaha kala duwan ee ciidanka amniga iyo mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda. cutubyo ka tirsan ciidanka booliska oo horkacayeen kooxda banda music ayaa gaardis ku maray barxadda weyn ee General Kaahiye halkaas oo ay salaam ku siiyeen ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Khayre. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Khayre ayaa u baxdhiga taalada booliska kadib hambalyo u diray dhammaan ciidanka booliska Soomaaliyeed. 74 sano ay waxay ku jireen qorosdiib 74 sano ay waxay ku hormariyeen naftooda dadka kale Soomaaliyeed si iyagu ay annaga noo siiyaan nabad aan geedaan hoostooda ku harsan. xafladan qabanqaabada markii la sameeyay waxaa ku nafweysay 17 ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed. 17 kaas haddii aanay naftooda bixin maanta halkan lama joogin. laakiin annaguna ma ilaawi karno 17 kii halkan ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay. waa inaan iyaga iyo qoysaskoodaba mar walba garab taagnaan ay ahaadaan qayb nafteenna iyo nolosheenna ka mid ah. kuwa dhintana Allah u naxariisto taasiyaan halkan uga diraynaa waana ka warqabaynaa qoysaska ay ka soo jeedaan kuwa dhaawacanna halkan ayaan kula tacaalaynaa kuwa halkan lagu la tacaali waayana waxaan ka shaqeynaynaa inaan dalka dibadiisa ku soo daaweynaa ilaa mar labaad waxaan leeyahay hambalyo shacabka Soomaaliyeed wuxuu idinka yahay raalli. wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe 1991 ciidanka booliska Soomaaliya waxay u burbureen si la mid ah qaybihii kale ee hay'adihii dawladda inkastoo dib u qaabeen ballaaran lagu sameeyay sanadihii u dambeeyay. aadan shuuriye Jimcaale Guulwade waa 62 jir wuxuu ciidanka booliska ku soo biiray 1972 xilligaas oo uu ahaa 18 jir. 72 aan ciidanka booliska ku soo biiray aad baan u faraxsanahay maanta. waa 20 jir aan noqday 20 sano ku dhawaad hadda 20 sano inaan jiraan isu maleeyaa farxadda ciidanka booliska aawadiis waana hambalyeena ciidanka booliska meel ay jiraanba wixii dhintana Allah u naxariisto wixii noolna Ilaahay yaani maartay bashba hadda waxaan sasaan dawladeeda aragnaa hadda waa faraxsanahay sanad guurida ciidanka booliska waa hambalyeena. aadan Guulwade darajadiisa ciidan waa kabtan wuxuu ii sheegay in isagoo akaaba isbitoore ay dhacday dawladii dhexe madaxweynaha ka ahaa Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. hadda kabtan waaye qabiil ima siin qabiilna kama raadin. labada xidigood waxay siiyay Cabdullaahi Yuusuf isbitoore kaaba dawladda iiga dhacday Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay dawladna asaga noogu dambeydaba haddeeraan sasaan haynaa. labada xidigtan kalena nin baa ii raadiyay anoo isiyana 8 sano anoo wada labada xidigood ayaa nin ii raadshi oo hadda dugsiga laga bedelay ninkaas waa u duceynaa
hadda saasaan kabtan ku ahay waana ku faraxsanaa kabtannimadeeda jananan hor socoo la qaybta horkow ku barnay kulli siyaano waay qabiil kuma qaadan markii qabiil uma shaqeeyo wax 72 dibowga markaan ka baxay waxa la igu dhaarshay 14 quraan kariimka inaan ummadda Soomaaliyeed si saaniyo ugu wada shaqeynayo shaqadeedu macallin garan waay cilmigaygu waa kow labo iyo dadkan tababaro oo aan soo saaro waxaas jiraanada arkay qaarkood anaga soo saarnay jiraanada aad u jeedaan oo harka arkay yaacay anaga macallimiin u ahayn nimca maxamed bashiir RTN magaalada Muqdisho